الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوة الأعزاء الله سبحانه وتعالى أيام هذا دن أسقناتي وحين سوغارني محاضرينكي أن أغسو هالليني مسائل كسابسان رمضانك محاضرتي أغد بيسي كسابسان العيد أحكام وآداب. عيد وحي لها أحكام إيا آداب ولا ليال الله جل جلاله إنه مهد علنا يواجب نوؤة مرهد النسوق غارسيي أو نوسو دمي بشي رمضان عبادتنا أنسوق قدني marka bisha ramadaan ay dhamaatana dadka muslimiinta waxa laga doonayaa farxad iyo reereyn inay muujiyaan oo maalintaas sida aad ugu farxaan soona dhaweeyaan dadka muslimiinta oo dhibaataysan gaar ahaan fuqaradana la siiyo wixii la heli karo oo hadii ahla zakat fidri iyo hadii ahaan laheeday sadaqa kale oo caadi ahba. walaalayaal Allah jalla jalaaluhu inuu mahad celinaba la doonayaa mar hadii ay bishii ramadaan aan soo cibaadeysanay aan marina farxadaasi xilliga aan muujin lahayn. walaalayaal muxaadarada intaan gudu jirnaa waxaan ka hadli doonaa dhowr mas'ala oo ku saabsan ahkaamul ciid. waxaan ka hadli doonaa ahkaamul ciid, kadibna waxaan ka hadli doonaa aadaabul ciid, kadibna waxaan ka hadli doonaa sunanul ciid iyo waxyaabo in la iska ilaaliyo mudan markii ciid lagu guda jiray. marka ugu horeysa waxaan leenahay horta ciid maxaa la yiraahdaa, maxaana ciid loogu magacaabay? waxay culimadu leeyihiin summiya ciidan li'awdihi wa takraarihi. ciid waxa loogu magacaabay soo noqoshadiisa iyo soo laabashadiisa darteed ayaa ciid loogu magacaabay. waxaa kaloo la yidhi li'awdi sururi fiihi, waxaa ciid loogu magacaabay farax ayaa soo noqonay baa la yidhi. waxaan horta ka hadlaynaa salaatul ciid. xukmu salaatil ciidi, salaada ciidda xukunkeeda muxuu yahay? culammadu way isku khilaafeen xukunka salaada ciidda ilaa 3 qowl baana ku jirta. qowlka koowaad wuxuu leeyahay annahaa sunnatun mu'akkada, in ciidu firiga ama ciidul adxa la dukadaya waa sunna mu'akkada, waana sidoo qaba madhabul imaamayn Maalik wa Shaafici. imaamu Maalik iyo imaamu Shaafici madhabkoodu wuxuu qabaa salaadaha ciidu la dukanaya ciidul firi iyo ciidul adxa labadaba inay yihiin sunno. qowl labaadna wuxuu leeyahay annaha fardun ala al-kifaaya, waa fardu kifaaya salaada ciida, waana sidoo qaba madhab imaam Ahmad radiyallahu ta'ala anhu warḍah. imaam Ahmad wuxuu leeyahay salaada ciida oo la dukado haddii ahla ciidul firi ciidul adxa labadaba waa fardu kifaayo. fardu kifaayaha waxa weeyaan dad muslimiinta kamid ah haday sameeyaan dadka intoodii kale uu ka dhacayaa, haddii dad sameey la waayana waa lagu dambaabaya, ciqaab baa lagu mudan hayaa. qowl saddexaadna wuxuu leeyahay annaha waajibatun ala kulli muslim, salaada ciida inuu dukado qof kasta oo muslim waajib ay ku tahay oo macnaha waa fardu cayn oo fatajibu ala kulli rajulin qof kasta inuu dukado waajib ay ku tahay. waya'thimu man tarakaha min ghayri cudrin, cudurdaar la'aan qofkii salaada ciida ka tagana wuu dambaabayaa, waana sida uu qaba madhabul imaam Abi Xaniifata rahimahullahu ta'ala iyo riwaaya Imaam Ahmad laga wariyay. riwaaya Imaam Ahmad laga wariyay imada Abi Xaniifa waxay qabaan in ay waajib ku tahay qof kasta oo muslim salaada ciida inuu dukado. hadalkan dabana waxa doortay Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah, Imaam Shawkani. meeshan waxaan ka fahmaynaa xukunka salaada ciid la soo khilaafay waa sunna mu'akkada sida uu qaba madhab Imaam Maalik iyo madhab Shaafici, waa fardu kifaaya sida uu qaba madhab Ahmad, waa fardu cayn ama waa waajib qof kasta muslim dukada laga doonaya man laga tagi kara, waa sida uu qaba madhab Abi Xaniifata iyo riwaaya Imaam Ahmad laga wariyo ta'ala an warḍah. saadarta marka qofka muslimku waxa laga doonaya inuu ku dadaalo inuu cibaadadas ida la yimaado soo ugu bixi laha khilaafka culimada. waa salaada ciid inay dukato jamaacana ku dukato baa laga doonaya si ay muslimiinta dhamaantood u muujiyaan shaciirtoodii iyo astaamaha ay leeyihiin. dadka muslimiinta waxa rabaa inay salaad u soo wada baxaan oo aynu soo harin baa la doonaya. qofka muuminka waxa laga doonaya inuu ku dadaalo ajirka soo ajir u heli lahaa fursad kasta oo heli karana waa inuu san dayicin.
waqtigee baa la dukanaya salaada ciida. salaada ciida waqtigeeda walaalayaal wuxuu ka bilaabanayaa markii qoraxda kor u soo baxdo waran qadarkiis ilaa wuxuu soconayaa qoraxda bartama ay ka gaarto ama zawaalkii ama duurka ay ku dhawaato. haddii marka qoraxda ay soo kor noqoto oo waran qadarkiisa ay soo kor noqotaay waxaa leeyahay dadku way dukanayaan salaadooda waa ansaxiisaa ilaa zawaalka laga gaarahayo. ibnu badaal raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi ajmaca alfuqahaau calaa ana salaata alciidi laa tusallaa qabla duluuci shamsi walaa cinda duluuciha wa inamaa tajuusu cinda jawaasi naafila. ibnu badaal wuxuu leeyahay culammada fuqahada waxay ku ijmaaceen heshiis ku yihiin salaada ciidda inaan la dukanaynin qorax intayna soo bixin ka hor iyo markay qoraxda soo bixiysaba. intayna qoraxda soo bixin ka hor iyo markay qoraxda soo bixiysaba la dukan maayo. waxaa la dukanayaa salaada ciidda xilliga salaad sunno oo mudlaq in la dukado ay banaaneed. xilli waxaa jirta ayan banaaneen salaad sunno oo sabab lahayn in la dukado. xillidaas waxaa ka mid ah bacda salaati subxi iyo cinda duluuci shamsi. markay qoraxda soo bixiysa agteeda salaad sunno oo sabab lahayn lama dukan karo. saa darteed marka xilligaas haddii la joogo mooyaane haddiiba xilligaa la dhaafaayo waa la dukan karaa buule ibnu badaal raxmatullahi calayhi. walaalayaal waxaa la sunaya salaada ciidul adxa hadday tahay waa ciidda carafo weeyaane in salaada la dedejiyo. salaada ciidul adxa markii la dukanayo waxaa la doonayaa salaada la dukanay in la dedejiyo. hase ahaatee waxaa ka duwan salaada ciidulfiriga waa ka duwan oo iyada waxaa la leeyahay dib in loo dhiga baa sunno ah. xigmada ku jirtaana walaalayaal waxa weeyaan siday culammadu sheegeen salaada ciidul adxa markii la dukanayo waxaa la doonayaa salaada la dukanay in la dedejiyo. waxaa la sunneeyaa gadaasheed in lala yimaado udxiya amaba in la gowraca xoolihii udxiya loogu talagalay. saa darteed marka imaamkii salaada buu dedejinayaa si ay dadka intay guryahooda dib ugu laabtaan ee waxay gowraci lahaayeen ay u gowracaan. salaada ciidulfiriga waa ka duwan iyada dib baa loo dhigayaa si ay dadka ugu suuro gasho in ay iska bixiyaan zakaatulfirigi. zakaatulfiriga ilaan waxaan soo sheegnay in ay waajibaysa habeenka ay dhalata bisha shawaal ilaa salaada ciidda laga gaar intay bay waajibayso maahan. dadka si ay ugu suuro gashay inay zakada iska bixiyaan waxaa la leeyahay salaada ciidda dib baa loo dhigi. hadda waxaad moodaa dadka magaalada jooga arrintaas inay ku dhaqmaynin. waxaa ka fiican dadka reer miyiga waxaad ku arkaysaa in salaada ciidul adxa ay dedejinayaan salaada ciidulfirigana ay dib u dhigayaan. arrintaas ayaana wanaagsan walaalayaal oo waxaa labaa hore in loo soo quraacdo salaada ciidulfiriga. tanna waxaa la doonayaa in yacni la dedejiyo iyadoon la quraacan la yimaado si dib markii loo noqdo ciddii udxiya bixinaysa ay xoolada u gowracato. xaggee lagu dukanayaa salaada ciidda? waxaa sunna walaalayaal salaada ciidda in lagu dukada meelaha musallaha ee masaajidka ka baxsan. waa meel lagu talagalay in salaada ciid lagu dukado waa hadday jirto. hadday jirin sida garoomada iyo meelaha waaweyn oo barxadaha ah in laisugu yimaado oo salaada ciid lagu dukado baa la doonayaa. maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo naqliyey inuu bixi jiray musallaha salaada ciid markuu dukanaya masjidkana uu ka tegi jiray. sidaas kale waxaa laga soo khulafaa raashidiinkii ayna saas ay samayn jireen. nabigana calayhi salaatu wasalaam asoo helaya shay fadli badan muusan ka tegi lahayn. saa darteed marka waxaa meesha laga qaadanayaa meesha lagu dukanaya salaada ciid in ay tahay meelaha barxadaha ama meelaha waaweyn ee dadku isku imaan karaan inay tahay. masaajidna waa la xirayaa haddiina cudurdaar iyo duruuf ayna qasbin. muslimiintu walaalayaal waxay ku ijmaaceen salaada ciidda in lagu baxa musallaha meel kasta oo la joogo beled ha la joogo yacni maaragtay zaman kasta ha la jooga waxaa sumid marka masaajidka inuu waasac yahay iyo inuu ciriiri yahay. sababtoo ah haddii la baxo oo salaada ciidda bannaanka loo aadayo waxaa meesha ka soo baxay baa laleeyahay farax baa la muujinayaa iyo dadkii isku meel deganaa oo meel isugu imaanayo oo iyagoo weliba guryahoodii iyo meelahooda kala duwan yihiin. waxaa meesha ka imaanay bay yidhahdeen in laysa salaama laysa waraysto oo laisku tahniyadeeyey munaasabadan weyn daraaddeed. waxaase jirta masale in lagu baraarugo mudan. masaladaas waxa weeyaan haddii imaamka uu soo baxay si uu dadka u dushiyo oo welibana uu ku talagala meesha musalla inuu dushiyaay dadka haddii marka meesha uda baxaan waxaa dhici karta inay jiraan dad ducafa ama dad taag daran waayeelo ama haween ama caruur oo aan u bixi karin meelaha dadka isugu imaanayaan. imaamka waxaa loo sunneeyaa inuu masaajidka ku reebo oo yidhaahdo dadka ducafada iyo dadka macnaha aan soo bixi karin yacni maduqooshinka masaajidka lagu dushiya. maxaa yeelay ayaga ma awoodaan inay bannaanka u baxaaneen. taana way fiican tahay arrinta in lagu baraarugsanaado. masaajid gebiida ha la xiro oo yaan la isugu imaanin ma ahee waxaa la rabaa dadka liito oo aan awoodda lahayn in ayaga masaajidka ay ku dukadaan. ama dadka awoodda leh ayaga waxaa la rabaa musalla meelaha bannaanka iyo barxadaha inay aadaan ay ku dukadaan baa la doonaya walaalayaal. sifatu salaati alciidi salaada ciidda tilmaanta ay leedahay.
salaad ciid waa laba ragcadood ragcado hore qofku wuxuu takbiiranayaa 7 jeer iyadoo takbiirul ihraam lagu darahayo kadibna faatixada buu akhrinhayaa kadibna suurad buu akhrinhayaa waxaana la sunneeyaa inuu akhriyo wixii sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray asoo waliba salaadii la jahrahayo maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ka sugnaatay ragcada hore inuu akhri jiray faatixada kadib sabbih isma rabbika la'la ragcada labaadna faatixada kadib wuxuu akhrin jiray hal ataaka hadithul ghaashiya haddii ay dhacdo maalin ciid ah iyo maalin jimca inay kulmaan fi yawmin waahidin wuu wada akhri karaa qofku banaanta inuu akhriyo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ka sugnaatay inuu akhriyay ragcada hore faatixada markuu akhriyay kadib suuratu qaaf ragcada labaadna faatixada markuu akhriyay kadib iqtarabat as-saa'atu wa inshaqa al-qamar hadiiskana waa sahih imaam muslim ayaa soo saaray wax kale inuu akhriyo ma u banaan tahay oo aan ahayn sabbih isma rabbika la'la iyo la taag hadithul ghaashiya ama qaaful qur'aan al-majid ama iqtarabat as-saa'atu waxaan ahayn inuu akhriyo ma u banaan tahay haawa u banaanta inuu akhriyo iyadoo ay wanaagsan tahay idin ku daydna maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu akhriyay inuu akhriyo ay fiican tahay ragcada labaadna markuu soo istaagay 5 jeer ayuu takbiiranay kadib ayuu faatixada akhrinayaa kadibna suurad buu akhrinaa saan hore u soo sheegnay culimadu waxay isku khilaafeen marka uu takbiiranaya qofka takbiiranaya gacmihi ma kor u taagayaa mas gacmaha ma taagayo laba madhab ay arintaas ku jiro madhab wuxuu leeyahay gacmaha kor buu u taagayaa adilla buuna sheegay oo salafka ka sugnaaday culimo qaarna waxay yiraahdeen gacmaha inuu kor u taagayo ma banaano oo waa mamnuuc bay yiraahdeen mid walbana daliil buu wataa laakiin waxa sugan oo salafka ka sugan in gacmaha kor u taagi jireen takbiiraadka marka waxa wanaagsan sida hadda la yaqaanaba in takbiiraadka gacmaha kor loo taago qofka markuu takbiiranaya takbiiraadka dhexdooda muxuu leeyahay sheekhu islaam tiimi rahmatullahi alayhi wuxuu yiri wa amma bayna takbiirati fa innahu yahmadu Allah wa yuthni alayhi qofka markuu takbiiraadka la iimaanayay ilaahay buu amaanaya subhanahu wa ta'ala nabiga buu ku sallallahu alayhi wasallam ilaahay buu bariyaa wuxuu doono ilaahay ku bariyaa Abdullah ibn Mas'ud ta'ala anhu ayaa waxa lagu wiri inuu yiri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar inuu yiraahdaay way fiican tahay oo waliba ku sii dara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allahumma ighfir li warhamni arintaas wanaagsan tahay buuri oo min Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay inuu yiraahdo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma ighfir li warhamni inuu yiraahdaay arintaas way fiican tahay haduu yiraahdo yiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila idina way fiican tahay buuri meelka Abdullah ibn Mas'ud wuxuu yiri wa in shaa an yaqula bayna takbiratayn laba takbir dhexdooda wuxuu leeyahay subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar Allahumma ighfir li warhamni saahadu yaa way fiican tahay waa sida laga soo wariyay salafka qaar kamid ah qofka haduu gaaro meesha uu ku dukanay muxuu sameeyaa musallihi ama meesha lagu dukanay ee aan masaajidka in haduu qofki gaaraya muxuu sameeyaa hadii meesha uu gaarayo imaamku uu isaagaya dadku uu khudbo akhrinaya dadkuna way dhageysanayaan hadii ay dhacdo marka qofki inuu salaadii gabagabay ama uu dhameeyaa muxuu sameeyaa salaadii uu dhamaatay oo laba ragcadood ciid waa dukaday hadii marka la dukado laba ragcadood salaada maxaa la sameeyaa hadii laba ragcadood salaada la dukada imaamku uu isaagaya khudbo uu akhrinaya dadkuna way dhageysanayaan waliba inay fariisaan oo ay dhageystaan ayaa mustaxab oo wanaagsan hadii ay dhacdo qof inuu hadla asoo imaamka khudba akhrinayana dambi korkiisa ma ahanin oo jumcaha lamid ma ahan jumcaha lama ogolo imaamka oo khudba akhrinaya dad caadi iska sheekeysaan dad badan anaga namid way khaldamaan oo wax arkaysa masaajidka dhexdiisi in iska sheekeysanayaan imaamkana khudbo akhrino minbarka saaran yahay arintaasna waa khatar wixii u yimaadeen way ku khasaarayaan waxa dhici karta dambi in loo soo raacdo arintan ma wanaagsana in la iska ilaaliyo la doonaya ama khudbada ciid markay socoto in la hadlaayo dib ma lahan laakiin waxa sunna in la dhageyso maxay yeelay ajir faradan baa kugu jiro khudbada oo aad dhageysato khudbadana dabcan waxa weeyaan waa laba khudbo oo sida khudbada jumcaha oo kala culimada lagama soo naqlinin hal kamid oo yiri khudbada ciid waxa weeyaan hal khudbo oo kaliya sida dad qaaro hadda waqtigan xadarka jooga ay yiraahdaan hadda waxa jira dad dhahayo khudbada ciida khudbada jumcaha lamid ma ahan oo laba khudbo ma ahee waa hal khudbo oo kaliya sida ay ka dhacdo magaalooyin qaar ama dhulka muslimiinta meel kamid laga sameeyay arintaas ee lama aqoon xilligii salafka waxaana wanaagsan in la raaca wixii salafka la arki jiray taasana sunna ah taasana diin laga dhiganaya waxaan gadaalka yimid ee la quruxsaday arin sax ma ahan marka waxaan leenahay khudbatul ciid khudbatani
khudbada ciida waa laba khudbo hor markuu dhamay uu fariisanaya kadibna uu soo istaagaya ee khudbadii labaad uu dhameystirahaya saaba la doonay in la sameeyo oo la raaco sunnada salafka rahmatullahi alayhim ajmaciin ma jirtaa salaad sunnaha la dukado meesha musalaha lagu dukado salaada ciid inta la dukanin ka hor iyo salaada ciid marka la dukado kadib macnaheedu waxa weeyaan meesha musalaha daad gaarto salaad sunnaha dukanay ma jirto intaan salaada ciid la dukanin ka hor hadii salaada ciid laga baxo dhamaatana salaad sunnaha la dukanaa ma jirto arintaasi waa muhiim in la ogaado sida sunnada wax weyn walaalayaal salaada ciid ka hor iyo kadib salaad sunnaha la dukado ma jirto hadii qofka uu yimaado meesha musalaha lagu dukanaya waa fadhiisanaya dadka takbiirta qaaday ayuu la qaadaya salaad intii laga gaarayna halkaas buu sii fadhinaya imaam Zuhri rahmatullahi alayhi wuxuu yiri lam asma ahada min ulama'ina yadhkuru anna ahada min salafi hadhihi al-umma kana yusalli qabla tilka as-salati ay salat al-eid wala ba'daha imaam Zuhri wuxuu leeyahay kama maqlin culimada mid kamid ah oo sheegaya anna ahada min salafi hadhihi al-umma qof kamid ah ummadan salafkeedii oo salaada eid ka hor dukan jiray ama kadib dukan jiray meesha musallaha markii la gaaro masjid haday tahay meesha lagu dukanaya masjid tahitu masjid buu leeyahay way banaantahay in marka la dukado tahitu masjid ahaan baad dukanaysaa laakiin haday meesha lagu dukado aysan masjid ahayn oo musallata ama meel banaan ama barxad ay tahay salaad sunnaha dukanay ma jirto takbiirtaas dhinaca ka qaadaysa ila salaada la gaarayo waxa kale imaam Zuhri uu yiri ma salla qabla al-eid badriyun badr badr ah oo salaad eid ka hor dukado ma jirto marka salaada eid ka hor sunna la dukanaya ma jirto hadii la dukado kadibna sunna la dukanaya ma jirto meesha hadii aysan ahayn masjid haday tahay tahitu masjid baa la dukan karaa salaada eid ka hor kadibna salaad la dukanayo sunna ma jirto waxaan u gudbaynaa xukmu man faatatu salatu al-eid qofkii salaada eid ay ka tagtay xukunkiisa muxuu yahay qofkii ay ka tagtay salaada eid wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu salaada dukada soo qadaynaya haduu doonan waa iska dhaafaya haday salaada eid ka tagto inaad dukatana ikhtiyaar baad u leedahay inaad iska dhaaftana ikhtiyaar baad u leedahay arintaas culimadu isku ma haystaan laakiin culimadu waxay isku khilaafeen qofkii raba in salaada eid uu dukadaay soo u dukanaya ma afar uu dukanaya oo hal salaam kaliya la dukanaya ama laba salaam noqsi maxay yeelay maadaama ay tahay salaad qada ay tahay oo salaad eid uu qadaynaya sida jumcaha oo kala tusaale ahaan hadii salaada jumcaha ay ka tagto oo badalkeeda duur aad dukanaysa afar ragcad dukanaysa Soomahan salaada eid haday ka tagtay ma laba ragcad dukanaysa mas afar ragcad dukanaysa culimadu waa isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen laba ragcad uu dukanaya qolan waxay yiraahdeen sida qof jumca ka tagto oo kala weeyano afar ragcad uu dukanaya qolka koowaad ee dhahaya afar ragcad uu dukanaya waxa la wari jamaaca min as-salaf oo ay kamid yihiin Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Mas'ud Imam Thawri Imam Sha'bi oo Imam Sha'bi ayaa wuxuu wariiba inuu yiri qala Abu Abdullah wuxuu dhahay salaada eid qofka ay ka tagto afar ragcad dukado salaada eid qofka ay ka tagto marka afar inuu dukado ayay macnaha ay qabaan sidoo kale Ali radhiyallahu ta'ala anhu wardahu waxa laga sheegay in uu amray nin dadka yaani maratay ducafada inuu dushiyo maalin ciid ah wuxuu yiri afar ragcad dushinaysa sida salaada yaani maratay duurka lamid ah waana si madhabka ka Xanaabila agtooda iyo qowl Xanafida ay leeyihiin qowlka labaad ee dhahayo salaada ciid haduu qadayna laba ragcad buu dukanaya waxa laga wariyay Imaam Awzaa'i oo wuxuu yiri waa salaad aan waajib ahayn oo sunna ah marka laba ragcad oo kaliya la dukanaya qowlkan waxa qaba kathiir min ahli ilmi in badan kamid ah saan qaba oo kamid Ibrahim an-Nakha'i Imam Malik Imam Shafi'i Abu Thawr Ibn Mudhir iyo Imam Ahmad qowl laga wariyay waxayna leeyihiin Anas oo ahaa khadimkii Nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu ahaan jiray hadii ay ka tagto salaada eid imaamka inuu dukadaay wuxuu jamci jiray soo keenay jiray ehelkiisi salaada imaamka uu dadka dushiyo oo kale buu dushinaya asigana waxa leeyahay qofka hadii uu salaada eid ay ka tagtaay waxa u banaan inuu qadeeyo haduu qadeynayna waxa u banaan inuu dukado laba ragcad oo sunna ah sidaas aad moodaa in raajix tahay waana si qaban kathiir min ahli ilmi oo Imam Malik Imam Shafi'i ay kamid yihiin qofkii marka qaleynaya salaada eid ma jamaacu ku dukanaya mase jamaacu iska dhaafaya haduu doono jamaacu buu ku dukanaya haduu doono kaliya buu dukanaya laakiin inuu jamaacu ku dukado ayaa fiican maxay yeelay salaad oo jamaacu lagu dukadaay fadli dheeri ah iyo darajo dheeri bay leedahay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri salaatul jamaa'ati tafdulu salaatal fardi bi 27 daraja salaada jamaacada waxay ka ajir badan tahay ka fadli badan tahay salaada kaliya la dukadaay 27 darajo haday dhacdo marka qofkii inuu yimaado imaamku atixaad ku fadhiyo waxa timiday laba ragcad horta la dukaday imaamkina atixaad u fadhiyo adigu maxaa sameynaysaa
horta salaada waa la xiranaysaa imaamkaas baad yani ku dayanaysaa markaad istaagto kadibna takbiiraadka waa la iimaanaysaa oo salaada ciid waa la iimaanaysaa laba ragca caadi baad u iimaanaysaa sababtoo ah salaada ciid imaamkii baad haleeshay adiga waxa la isweydiinayaa haweenku inay u baxaan musallaha ama meesha lagu dukanaya ma banaan tahay waxa nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam inuu haweenka amri jiray inay meesha lagu dukanaya u baxaan si ay takbiirta ugu qayb galaan iyo salaada iyo khudbada xitaa waxa soo baxay haweenka markaasi dhiiga u joogo salaada ciid meesha lagu dukanaya bay u soo baxayeen laakiin meesha lagu dukanaya waa ka fogaanayeen dadkana lama dukanaynin waayo mid aan daahir ahaan weeyaan waxaas laga doonaa dadkaasi midowgooda ama jamaacada ama tiradooda inay badiyaan baa la doonayaa haweenku marka way u soo bixi karaan haddii haweenku marka u soo baxaan meesha oo lagu dukanaya waxaa sunno u ayaga inay soo qubaysaan oo kaliya biyo isku soo nadiifiyaan laakiin waxaa ka xaaran oo ka mamnuuca wax udgay ama caraf inay soo isticmaalaan aad ha u dhageyseen gabdhaha muslimaadka arrintaa waa muhiim walaalayaal waxaa loo diidayaa haweenay ka soo qayb gashay meel ciid lagu dukanayo ama iyada ha dukato markaas ama yay dukanayna in is soo carfiso baa la diidan yahay ka waran haddii aanba ciid ahayn oo ay u soo baxday magaaladii oo is soo carfiso haweenay noocaas in isdaalinta buu nabiga tilmaamay haweenku waxaa leeyahay iska ilaaliyeen khaladka ay galahayaan masalan ka hadlayna walaalayaal waxa weeyaan takbiirta mas'alada ku saabsan waxaa sunna maalmaha ciid in la takbiirto muslimiinta arrintaasi way ku ijmaaceen takbiirta waxa loo kala saaraa mutlaq mid yani aan waqti lahayn iyo mid muqayyad waqti leh muqayyadku waxa weeyaan salaadaha waajibka kadib baa la iimaanaya mutlaqana waxa weeyaan fi kulli makaanin baa la iimaanaya haddii suuq la joogo haddii guri la joogo haddii masaajid la joogo meel kasta oo la joogaba takbiiraadkaas xagee ka bilaabanayaan xageena ku dhamaanayaan culimadu waxay isku khilaafeen takbiirta meesha ay ka bilaabanayso imaam ahmed iyo culimo badan waxay leeyihiin takbiirta ciidul adha waxay ka bilaabanaysaa maalinta bisha carafa ay tahay sagaal subaxeedii salaad subaxeed markii la dukado maalinta bisha carafa ay tahay sagaal kadib ayaa la iimaanaya takbiirtii la iimaanaya ilaa laga gaaraya maalinta bisha carafa ay tahay 13 casirkeeda casirkaas ugu dambeynaya ayaa mutashriq maalinta ugu dambaysa weeyaan waana madhab qawi oo adilada u wataan aad u qow badan tahay adiladaas oo laga heli karo kutubta fiqiga Sheikh al-Islam Taymi wuxuu yiri aqwaasha ugu asaxsan xagga takbiirta waxa weeyaan waa si ay qaban jumhuur salafi wal fuqaha oo saxaabadii iyo aimada ay kamid yihiin in maalinta carafo ay sagaal tahay in laga bilaabo takbiirti oo ayam tashriiq lagu dhameeyo waa takbiirta la ilmaana ciidul adha ama ciidul fidriga soomahan takbiirta wuxuu ka bilaabanayaa sida raajica habeenkii ugu dambeeyay bisha ramadaan ee qoraxda dhacday ee la arkay bishii shawaal waa habeenkii ciidda weeyaan qoraxda markay dhacday ay ka bilaabanaysaa ilaa imaamka salaada uu ka galo intaas ay soconaysaa tilmaanta ilaa takbiirta muxuu yahay Sheikh al-Islam Taymi wuxuu yiri sifatu takbiir waxa weeyaan oo laga soo naqliyay saxaabo badan waxa weeyaan asoo marfuuc ahna la wariyay waxa weeyuu yiri in la yiraahdo Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu haduu qof yiraahdo Allahu akbar saddex jeer uu ku celiyana way banaan tahay buuri fuqahada qaar waxay yiraahdeen wuxuu dhahayaa qofka Allahu akbar oo kaliya buu saddex jeer ku celina bay yiraahdeen fuqahada qaar kamid waxay yiraahdeen markuu yiraahdo Allahu akbar saddex jeer uu yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir arimahaas wax lamidna waxa sheegay Ibn Qudama rahmatullahi alayhi takbiirtu waxay kala yeelan kartaa tilmaamo kala oo qaarna way ziyaadiyaan qaarna macnaha way ka dhimaan waxa lagu ziyaadiyo waxa kamid ah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ziyadadka fuqahada qaar kood laga sheegana waa jirtaa aadaabti iyo sunnooyinka ay leedahay ciidda u gudbayna aadaabtu waxa kamid ah maalinta ciid in la soo qubayso salaad inta la soo aadan ka hor waxa kale oo sunnah qofka muslimka oo rag ah inuu soo marsado atar ama wuxuu heli kara oo caraf ah inuu soo cadayso inuu soo qurxiyo ama dharka ugu wanaagsan heli kara oo soo qaato baa la doonayaa waxa kale oo sunnah ah in la soo xirto dharka ugu wanaagsan ee qofka uu heli kara naftaada inuu ku dhibto ma awoodaada wax ka baxsan waxa laga doonayaa inaad dadaal ku bixiso oo kaliya in aad yaani maaragtay wixii heli karto dhar aad soo xirato soo kale waxa sunnah inaad timir soconto salaada ciid firi la soo aadan koor salaada ciid firi koor in timir la soo cuno waliba tir isdaaf loo soo cuno hal 3 5 7 9 kooito noocaas ama ciidul adha markay tahay id waxba la soo cunma ila laga soo dukanay saasan nabi ayaa ka sugnaatay kaleeyhi salaatu wasalaam waxa kale oo sunnah walaalayaal in takbiirta la muujiyo makaanka soo la joogo dadku waa inaysan iloobin xitaa ilaa laga gaarayo wadada intay soo marayaan ilaa meesha ay ku dukanayaan ay ka tagayaan takbiirta way sii wadayaan waxa kale oo sunnah markay ciid loo baxaya idoo la lugeynay in loo baxo oo la degan yahay xasilan yahay in la lugeeyo la rabaa qofka haduu xanuunsan yahay
ama yani maaragtay uusan soco karin inuu gaadiid koraaye waa u banaanta markaasi laakiin qofka caafimaad qaba xaro lugtiis inuu ku tago baa la doonaya waxa kale oo sunna ah hadii meesha musallaha ama meesha lagu dukanay aad gaartay yani inaad wadadii marka hore aad martay inaad ka leexato oo wada kale aad soo marto si khayrka uu kugu bato baa la doonaya waxa kale oo sunna maalinta ciid in la doonaya in la ziyaaradka qaraabada oo maalintaasi yani maaragtay dadka loo muujiyo farxad iyo waji furnaan loo muujiyo waxa kale oo sunna ah maalinta ciida caruurtaada iyo ehelkaada inaad ka farxiso oo raashinka ay cuni jireen raashin ka duwan aad siiso oo maalintaasi loo waasiciyo inta adiga heli karto waxa kale oo sunna ah in maalintaasi dadka isku tahniyeen isku hambaliyayaan tahniyada waxa weeyaan in la yiraahdo midalan taqabbal Allahu minna wa minkum waana duca yani maaragtay la doonay dadka la yimaadaan Allah naga aqbala anaga iyo adikaba waa duca waa moogtahay in la yimaado baa la doonaya taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mali waa la yiraahdaa waxa kale oo sunna ah in loo dhaqsado meesha ciid lagu dukanayo si qofka safka hore boos ugu helo waxa kale maalintaas mamnuuca in rag xirtaan waxyaabo hore ugu xaraan ah sida dahab in xirtaan am xariir ay soo xirtaan haweenka ayaga waa loo baneeyay waxa kale oo sunna ah maalintaas in la isku tahniyeeyo arintaasna saxaabada way ka sugnaatay nabina kaleey salaam xadiis saxiix oo ka sugnaaday ma jiro oo dhahaya sahla yeelo laakiin saxaabadii markay kulmaan ay waxay sameeyeen jireen in isku tahniyeeyaan oo waxay dhihi jireen taqabbal Allahu minna wa minka saan hore u soo sheegnay ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi wuxuu yiri xadiiska dhahaya taqabbal Allahu minna wa minka ay saxaabada dhihi jireen sanadkiisu waa xasan buu yiri waxyaabo waxa jira maalinta ciida dhaca oo la doonayo qofka soo muslim iska ilaaliyo waxa laga rabaa qofka soo muslim inuu ku dadaalo inuu ka dheeraado waxyaabaha bidcooyinka iyo munkarka meel kasta iyo waqti kasta uu joogaba waxyaabaha marka aan wanaagsaneen ee ciidaha dhaca waxa kamid ah habeenka ciida in cibaadada la soo jeedo ama cibaadada lagu nooleeyo salaad ama dhikri la yimaado waxyaabahaasi wax sugan ma ahan wixii marka nabiga ka sugnaa in la yimaado la doonaya waxaan sugnay in la isku mashquuliyo ma aha walaalayaal waxyaabaha kale la sameeyay ciidaha waxa kamid ah in la dhageyso waxyaabo musiga ama heesaha xaraanta ah waxyaabahaas in la dhageysto iyana wax wanaagsan ma ahan waxa kale yani in la iska ilaaliyo u baahan in israaf la yimaado ama xadgudub dharka la xiranay hadii noqon lahayd waxa la cunay haday noqon lahaayeen waxa la cabay haday noqon lahaayeen waxaasoo waa amal sheedaan in la iska ilaaliyo la doonaa walaalayaal waxyaabaha kale la iska ilaaliyo doonaa waxa kamid ah in maxaan ku yiraahdaa rag iyo dumarka is dhaxgalaan meelaha la isku iimaanay ama meelaha lagu kulmay rag iyo dumarka in la is dhaxyaaco oo dadku dhan ay isku mid noqdaanaba in haweenka ay soo baxaan ay soo carfiyay oo muujinay in ay carfayaan arintaas idin arin qatarteeda la weeyaan waxa kale oo mamnuuc ah in la iska ilaaliyo u baahan walaalayaal rag iyo dumar in salaamaan maadaama la faraxsiya maalintaasi in la yiraahdo si salaamo iidan arin wanaagsan maahan in la soo xirta dhar ciriiri ah rag iyo dumarba ma wanaagsan dhar ciriiri ah in rag soo xirtaan oo ayaga dhan ku dhagan ee jirkooda soo sawiraya haweenkana soo dhar ciriiri soo xirtaan waxa kale haweenka mamnuuc ka inay soo xirtaan dhar yani khafiif ah dharkan hadda magaalada ku soo batay oo aad ka khafiif ku ah waxaasoo wax wanaagsan maaha in la iska ilaaliyo baa la doonayaa ugu dambeyn waxaan leeyahay walaalayaal rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka bagno maalinta ciida farxadda aan muujino aan ilaalina aadaabta oo sharci islaamku wuxuu ogol yahay kaliya ala nimaano hal la iska ilaaliyo maalintaas ciid waxyaabaha dhacay oo khaladka oo ay kamid tahay arinta loo yaqaan baqtiya nasiib dadka qaar waxay ku weydiinayaan ku leeyihiin baqtiya nasiib ma banaan yahay sheekhu baqtiya nasiib ma banaan yahay si ii weydiinay adaa waxa ba leedahay baqti goor ma banaanaaday marka walaalayaal mukhalafaadka iyo waxyaabaha khaladka la iska ilaaliyo maalintaas waxa la doonayaa ciida farxad in la muujiyo dadka isku qalbi furnaadaan oo wajigooda reereyn iyo farxad ay ka muuqato baa la doonayaa laakiin in xumaato iyo munkar la yimaadaay ma wanaagsan walaalayaal ugu dambeyn waxaan leeyahay وتقبل الله منا ومن جميع المسلمين أعمالهم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.